هذا سمي كريم فرح قاد خصب على قومله هذا دونت soo hadalo waan isla tumadeynay hadii kale saaxiibayaal waxaynu isla eegaynaa codad uu soo bandhigay wiilkii lagu eedeynayay inuu Safiya Tusmo sawiraanteeda ama muuqaaladeeda ayada sirta uu ahaa ka faafiyay waa wixii hore ee la isku haystay ee baraha bulshada la wareejinay sawiraantii ay asaga iyo ayaduba isku la jireen ee asaga lagu eedeynayay in uu faafiyay wixii hore wax ka qaab daran ka halis badan kama garanaysaay ka ceeb badan kama garanaysaay marka la fiirsho lagu hubo inuu asagu hadda soo dhigay oo bulshada la wadaagay waa cod labadooda ka dhaxeeya oo ay ayadu kula hadlayso isla markaasina ay u gar dhiganayso oo ay leedahay waxaan waaba dhaceene maxaad sidaas u dhihi weysay bal aynu isla fiirino horta codka baraha bulshada la wareejinayo ee uu keenay isla markaasina soo bandhigay wiilkii lagu eedeynayay inuu horay muuqaaladii ama sawiraantii sirta uu ahaa Safiya Tusmo uu baraha bulshada soo dhigay ama ku faafiyay aynu isla eegno waayo Safiya ma beentii habla yar sheegana baadna sii saxday marka waayo uu macaan ilaa waxaan ku lahaa anigu ka hadalay ugu lahayd waan ka hadlaya waxaan hal shaqo ku lahayn beehede haddana walaal hadafkaagii horan bad sii xoojisay uu macaan Safiya sawiri waan miitiriyo marka ya haddii aan wax yar dhex galo wiilkani codkani ay isku la hadlayaan Safiya Tusmo iyo asaguba waxay ahaayeen wax labadooda u gaar ah yacni wax aysan bulshada kale ka warqabin qofka hadda bulshada la wadaagay labadoodii codka u gaarka ahaa waa asaga marka qof macna u bareeray in uu cod gaar ah oo labadooda ka dhaxeeya oo ay si qaas ah asaga ula hadashay in uu baraha bulshada soo dhigo ee uu public ka soo dhigo ee uu ummadda ku ceebeeyo ninka u bareeray maxaa diidaya inuu asagu waxyaabihii hore ee sirta u ahaa Safiya Tusmo ee ahaa sawiraantii hore la faafiyay inuu asagu faafiyay maxaa diidaya codkan ayaaba ka qaab daranba wixii hore la faafinay wixii hore gabadhan yacni ay ka calaacalaysay oo ay lahayd waa laga faafiyay codkani hadda uu ka qabtay ayaaba uga daranba uga dhib badanba uga niyad badanba يعني waxaan wax labadooda u gaar ayay ahaayeen laakiin hadda social media meel walba wala wareejinaya codadkan adigu sidan halkaad u arkaysaa miyaa walaal bal soo sheeg adigu idan aniga wad la hadashay intaan hadline hadalkaygu inuu sidee noqdaa baad rabtay anigu ma qabis baan ku diray walaal iyo inaynu caynkan iyo maxaynu beenta ku falaynaa waxaan jirin aynu u sheegnaa wala macaan clipkan inayna shaqo ku lahayno waxaynu inagu ognahay waxaan anigu ogahay waxa aanu mid yani inaana shaqo ku lahayn adiguna waad ogeed ilaahay iyo mudisina way ogeed inaad waxa ka hadasho ma ujeedadayno hayda arrimahan kale uu maxayna si dhixgeliyay macaan su'aasha la weydiiyay baan ka jawaabay laakiin adigu waan ku ogahay waad iga faanisay markii hore wada soconayba imankana ceeb ay kugu tahay lagu dhaahdo Tusmo nolol soo wadaagay ama qabay taas baa ka dhadhaxsan demaya raganimadaada iyo aniga waxa sigama dhadhaxsan aynu saani wada horo yani waxay fiicneed inaad tahay gabadhan waan qabay waana kala tagnay imankana waan kala dhamaanay umada faraha naga qaadan يعني waxa ay kala hadlaysaa waraysi oo xala bixiyay ayuu wuxuu ku sheegay in aysan isqabin Safiya Tusmo maadaama hore loo lahaa waa ay isqabaan marka waxa uu yiri xiriir ayaa naga dhaxeeyay aniga iyadaba marka gabadhu waxa ay leedahay marka waraysiga bixi kadib ayay wacday oo waxa ay leedahay in aad bulshada yani dhahdo ismaana qabin ma ahayn inaad tiraado kaliya waan isqabnay waana kala tagnay waa kala dhamaanay yani ceebta ama waxa labadeena noo gaarka ah inaad asturto ayay ahayd ayay leedahay haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay in ay si gaar ah ula hadasho oo ay u tiraahdo yani inaad ceebteena asturto ayay ahayd ma ceeb ayay leedahay haddii ay dembi galeen oo ilaahay ka galeen waa wax ayaga u gaar ah haddii ay naftooda yani si gaar ah u galeen oo naftooda ka galeen ayagay u gaar tahay marka in aysan isqabin iyo in ay isqabeenba yani waa wax ayaga u gaar ah ayay ahaayeen marka iyadu waxa ay ka xumaatay maadaama sawiraan iyada iyo asagba isku la jiraan baraha bulshada la wareejinayo yani ay faafeen sawiraantaasi si ceeba oo macnaha aysan iyadu raali ka ahayn ay ku faafeen haddana in uu ugu sii daro ismaan naaqabin taasoo arrinta ka sii dhigaysa mid xasaasi ah oo sidii horeba macnaha ka hadal hayn badan
oo ka mad garanaysa uga dhib badan gabadhan arrinta ka sii dhigaya marka waxay ka xumaatay in uu yacni uu yiraahdo ismaan naaqin ugu yaraan inuu ku gaabsado waan kala tagnay mar horaan kala tagnay xataa aan macquul ahayd moogta sidaas ka rabto waa sida muuqata anigana wax weyn bay ahayd ana wax weyn laakiin you don't want it sheekadii halkaasay ku xidhan malahay walaal macaan marka adiga inta kaa doonayay taasay ahayd inaan waan qabaa idhaahdo of course soo dhamaatay ka xidhan malahay ما أنا جاي سوقتي مركا أنا بقول له وان قبائل ما يا كنت جرش تمجر لا تماتي أنا يروح بابي يسوي فرصته صار لي عيني في الميديا أوكي أنا قال لي عيني هذا لقمة عيني صومنا معا ما نتقرأتي عقوبة هذه ما أنتي هاي تنج ما كبحي وحين نحمري وحين نحن يالينا وذوقتها والله المعان إما كوا وحويان هذا أنا مسمين كريم فرح قاد خاصة بيدي بوبو مالي هذا دون تصوح هذا لو ما نسلت مدينة دي هذه كله وحويان هون معان ده وحن قرن كلام كلام جرت تاسيد marka saaxiibayaal waxaan faafinaya oo baraha bulshada soo dhigay waxa weeyaan isaga weeyaan waa isaga waxa faafiyay codadkani marka taas waxay muujinaysaa qofka markii horeba waxyaabihii labadooda sirta uu ahaa faafiyay inuu asaga yahay ayay muujinaysaa yacni dhiiranaanta heerkaasi gaarsiisan si qaas ah ayay ula hadashay in uu public ka soo dhigo oo bulshada ku ceebeeyo gabar xiriir ka dhaxeeyay yacni taas waxay muujinaysaa qaabka uu wejigiisu u furtay qaabka uu yacni naxariis darrada oo muujinaya gabadhan inuu mustaqbalkeeda dhan ayaheeda dhan inuu ku ciyaaro iyo ugu talagalay wax sawiraantii hore faafiyani waxa weeyaan isaga weeyaan saaxiib yaal waxaan inii hayaa wiil ay saaxiib gaar ah yihiin oo xitaa mar waraysi la yeeshay oo cadaynayaba inay yacni ay muuqaal lahaayaan oo ay gabadhani ka hayaan barnaamijka xiga ayaa inoo ballam ah